maxaa dhacaya haddii ay qorraxdu qaraxdo? Dunidu ma sii jiraysaa? Dadkuse sidee ayay noqonayaan intaynaan ogaan wixii dhici lahaa haddii ay qorraxda ama cadceeddu qaraxdo? Ugu horrayn aan wax ka ogaano waa maxay qorraxda ama cadceeddu. Qorraxdu waa shay aad u weyn oo ka samaysan neefo ololaya, waana xidigta ugu kulul uguna weyn ee ay nolosha adduunku ku tiirsan tahay. Dhammaan meerayaasha waxa u dhex ah qorraxda, iyada ayaana ah midda midaysa ee ay iftiinka ka qaataan. Dhammaan meerayaashu waxa ay ku wareegaan qorraxda si ay iftiin iyo tamar uga qaataan. Waxaa la rumaysan yahay in ay qorraxdu cimri ahaan jirto 10 bilyan oo sannadood, waxaanay sii jiri doontaa 5 bilyan oo sano oo kale. Waa sida ay saadaashu sheegayso. Intaas kadib qorraxdu waa ay qarxi doontaa iyadoo noqon doonta xidig aad u cas. Waa marka ay galbeed ka soo bixi doonto, yacni maalinka qiyaame. Qorraxdu marka ay qaraxdo bilyan sano ay ku qaadan doontaa inay qabowdo oo ay dhagax caadi ah noqoto. Qorraxdu waxa ay dhulka u jirtaa 150 bilyan oo kiiloomitir iyo 93 milyan oo mayl, waana masaafo aanu caqligu qaadi karin fogaanteeda. Iftiinkeeduna inuu dhulka soo gaadho waxay ku qaadataa 8 mirir oo keliya. Haddaba maxaa dhacaya haddii ay qorraxdu hal mar qaraxdo? Warka farxadda leh ayaa wuxuu yahay haddii ay qorraxdu berri qaraxdo, inaguma soo dhacayaan wax dhimbiilo ah oo xaggeeda ka yimid ama dhagaxaan kululi, laakiin heerkulka shay waliba 15 jeer laab ayuu ka sii kululaanayaa sidii lagu yaqaanay. Taasoo macnaheedu yahay in meel waliba uu dab ka kici doono. Qof kasta maryaha uu xidhan yahay ayaa ku ololi doona, meel loo ciirsadaana ma ay jiri doonto, sababtoo ah biyaha caadiga ahi waxay noqon doonaan kuwo karkaraya. Ciidda haddii la isku bakhtiin lahaa, iyada lafteedu waa dab aad u kulul. Muddo kooban marka ay cimiladu sidaas u kululaato, kadib waxaa bilaabmi doona qabow aad u daran iyo mugdi aan xad lahayn. Heerkulka cimiladu wuxuu dhaafi doonaa -8 iyo 70 digrii. Badaha ayaa barafoobi doona oo fadhiisan doona. Ma jiri doono wax roob ah oo hawada sare ka soo da'a. Geedaha iyo dhirta oo dhan ayaa toddobaad gudihii adduunka kaga tirmi doona. Waxaa la waayi doonaa wax nool oo dhulka guudkiisa maraya iyo shay aan noolayn oo dhaqaaq sameeyaba, sababtoo ah biyihii waa ay dhagaxoobeen, geedihii waa ay qallaleen, wax dabaylaah ma jiri doonaan. Dhulkuna waxa uu noqon doonaa meere aad u madow oo aan la moodin inuu dhulkii yahay. Alle inaguma keenee, hadduu keenana inama gaadhsiiyee. Waa musiibo ay qalbiyadu la dilaaci doonaan. Argagaxa ugu horreeya ay noolayaasha badankoodu hore kasii dhiman doonaan. Dhawaaqa iyo shiddada daran ee dhulka soo gaadhi doona ayaa isna noqon doona mid nafa badan galaafta. Muuqaalkuna intaas ayuu ku egyahay. Like saar una sii sheergaree saaxiibadaada kale. Haddii aad nagu cusub tahay, wax badan ayaa ku dhaafay ee page-ka soo indho-indhee. Mahadsanid.